بسم الله magacay waa Nuur Khalifa Cadde waxaan ka tirsanahay dhalinyarada degmada Hobyo qaasatan waxaan ku jiraa maamulka guddigiisa ku jiraa meeshan waa garoonkii stadiumkii Hobyo waaye waxa uu jeednaa maanta waxa ka muuqda duruufta iyo sportiska lagu dheelayo dhalinyaradii intii dhamaan way joogtaa waxaan kaloo rabnaa meeshan inaan codsi kaga dirsano haddaan nahay bahda dhalinyarada degmada Hobyo qaasatan inaan ra'iisul wasaaraha qaranka حسن علي قيرة iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay martiqaadka ay siinayeen gobolka Mudug gaar ahaan dawladda Soomaaliya dhan maanta waxaan codsanaynaa inaan ay noo dhisaan garoonkii degmada waxa ka muuqda waa u jeedin ma dayactirnaa ma haysano meeshan biyaha yimaada 6 biloodna biyaha yimaada 6 biloodna anaga ku dheelna waxaan codsanaynaa marka anoo dhamaan ay iga dambeeyaan ciyaartoydii kabtanadii iyo maamulkii degmada oo dhalinyarada ahayd inaan nala dhiso garoon ra'iisul wasaaraha iyo waxaan ka codsanaynaa xukuumaddiisa waxaan kaloo meeshan baaq ugu dirayaa waxa bahda sportiska ha noqoto heer federaal ha noqoto heer maamul goboleed inay ay kana waxay go'aan ay ka leeyihiin meeshan ay ka qaataan dhalinyarada sportiska degmada Hobyo gaar ahaan xaafadda Wadajir anigoo ku hadlaya magaca xaafadda Wadajir dhalinyarada sportiska ka dheesha waxaan codsi u direynaa dhammaan madaxda federaalka oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo u jeedaan dayaca ka muuqda garoonkeena sportiska ay ku dheelno runtii qof walba oo maanta garoonka yimaada ama TV-ga fiidiyowga soo gaaro uu dareemi karaa baahida ka muuqata waxaan codsanaynaa lacagihii ugu deeqay garoomada nala midka ee deegaanada Galmudug inuu noogu deeqo ra'iisul wasaaraha in noo taageeriyaan codsiga garoonka u jeedin muddo waxa ka socota 6 bilood 6 biloodna ku dhigna 6 biloodna waa ka nasanaa marka waxaan rabnaa in nala fidiyo garoonka maadaama aan nahay ciyaartoyda gobolka Mudug gaaraan Hobyo sidaa daraadeed waxaan jecelnahay